maalmihii u dambeeyay waxa taagnaa khilaaf adag oo u dhaxeeya axsaabta mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda kaasi oo ku saabsanaa in axsaabta mucaaradka Soomaaliland ay doonayaan inay banaanbax ku qabtaan magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland iyadoo xukuumadduna sheegtay inaan la aqbali doonin banaanbaxaasi halka axsaabta mucaaradka Soomaaliland ay ku adkaysanayaan inay banaanbaxaasi qaban doonaan haddaba dadweynaha kala duwan ee magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishinka Saab ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda sida ay u arkaan banaanbaxaasi mudaharaadka oo taageersanahay laakiin waxaan ugu baaqayaa xisbiyada mucaaradka mid baan leeyahay iyo gudoomiyaashood iyo musharax madaxweynaha xisbiga wadani horkaca oo annaguna waan mudaharaadayna laakiin mudaharaadkeenu ha noqdo mid indhaha caalamka soo jiita oo indhaha caalamka inaan ku soo jiidanoo kaliya ta doorasho la qabto waxaan leenahay boodar noo qaybiya boodharkaasi basar laan wadno askartu markayna aragto inagoo si basar loo socdano si nidaam loo socona insha Allah iyaguna wayna barbargeli si fiican buu mudaharaadku inoogu dhici si amnina buu inoogu dhici insha Allah waxaan ka rajaynaynaa Ilaahayna haddaan dhalinyarada nahay ardayda jaamacadaha inuu mudaharaadkaasi si amni u qabsamo midna madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dadkii oo dhani waxay aamineen inuu dagaal dhacayo madaxweyne hadalkaagaan sugaynaa annagoo dhalinyartii jaamacadda maanta 2 jaamacadood baan dhigtaa inaan guursadaan doonaya ilaahay baan ku dhaashay madaxweyne bal haddii waddanka lagu kala dareero maxaanu samaynaa madaxweynaha waxaan u sheegayaa bal madaxweyne hadal oo ummadan hadal qaboojiya annagii hadalna qaboojiya madaxweyne nadhe dadkii lacagihii waxay leeyihiin dollar u bedeshay waa lagu kala yaacayaa qaar kale waxay leeyihiin niman baa loo magacaabay taliye militariga waxay leeyihiin waa dhagara naga duwa bal madaxweyne waxaanu ku leenahay hadal oo qabooji oo dhalinyarta qabooji oo ardayda jaamacadda qabooji oo hooyooyinka qabooji oo ummadan sixir bararka iyo abaaraha iyo suuqyada ka gubteen ganacsiyada ka gubteen madaxweyne qabooji banaanbaxu horta sideedaba waa wax sharci ah oo adduunyada oo dhan laga sameeyo laakiin waxaan sheegaynaa dadweynaha laftooda inay si silmiyo wanaagsan oo buuq lahayn oo dagaal lahayn oo shiid lahayn ay u sameeyaan madaxweynuhuna waa madaxii ugu sarreeyay ummadda Soomaaliland marka ha sameeyo sharciga ku soo noqdo si wanaagsan ha u qabto hawsha oo ha dhameeyo xisbiyaduna ay isdajiyaan mudaharaad silmiyana ha sameeyaan isku soo bixi waxa weeyaan waa fikri qofku dhiiban karo awalna wala isku soo bixi shariic caalamkuna wala isku soo baxaa qofkuna codkiisa waa dhiibtaa iyo maxay shucuurtiisa kulmiyana waa kii awalba ka daba qaylin jiray maxay ahayd toolay axsaabta kale waa kii maxay ahayd toolay isba soo banaan bixi jiray waxa weeye wadadii hore uu dadka u jeexay ayuunbaa la marayaa wadada kulmiya dadka u jeexay ayuunbaa imika la marayaa marka waxaan leeyahay dadku isku soo baxaan iyagoo aan hantida iyo maxay ahayd toolay bebelashiga aan xadhibeen qofku shuruucdiisa maxay ahayd dareenkiisa muujiyo والله aad baan u kacsanahay ma rababa inaan halkan ka hadlo ma baan rabin laakiin way igu simi wadana wadada marayaan la kulmay waxa weeye mudaharaad waa la dhigayaa mid aan waxa la dhigayaa aan dagaal ku jirin oo dagaal iyo samxatoona la wada boorka si loo sito oo maxay laga mudaharaadayo mudana madaxweyne anigu waxa ku leeyahay ma 94 waqtiga dadkani goormuu dhashaa war ma caruurta 94 ta wadanka xukunta meedan idinku wadanka xukumin waa maxay waan haysanaa waa maxay muusaw ka banee meesha baan ku soo wana ku dhamee gogasho ogolow doorashadiina qabo ciidanka waxa la geeyaa meel ay dib ka jirta ayaa ciidanka la keenaa dadkii aan mudaharaadin oo waxba sameeyeen marka waxaan ugu arkaa in dadka la kicinayo oo la leeyahay kale mudaharaada أنا مركب واحد لا هذا يقول دو شيء تذكر ديتو أرضاك ويا حاجة وقاعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان قرادة كشكل مظاهرات شرعي درنا ما شرعي درنا وشرعي درة وحنوش يجي لأنه مظاهرات شرعية هاي حق دستوري هاي لما المواطنين تيجي تاجرياش حسبنا معارض كوحلنا يسوع صباحا عيد إذا هو يستاهل كرتان مشرتو عيد حبض إن الله كرتان مشرتو وبين نك يروح حبض بلد يكون ذي بين بيدين شيء حبض نك سوري ده وينو يسودو جاي لا يسوي ذي كذا ما يعد محن قرادة حبض يكون سوري ده وما تسنتين. horta maanta magaalada Soomaaliland mudaharaadada jira aynu maanta aynu wadno wax nolosheena soo jiray aynu mudaharaad jirnay weeyaan waanuna maanta u baahanay ummadda Soomaaliland waanay mudaharaadaysaa bari iyo saadambaba waanay dhici doontaa insha Allah madaxweynaha Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa si qurux badan oo sharaf iyo wanaag ku dheehan yahay doorashada inuu noogu qabto waayo dalka maanta wax isbedela iyo wax maxay ahaydeen midna kama hayno waxaanu uga baahanay madaxweynaha maanta aanu ka codsanaynaa insha Allah bidnaa kariin inuu doorashada noo qabto mucaaradku waxay caalamka tusayaan in extension muddo kororsi uu jiro doorashadiina uu madaxweynuhu ka dhagaadeegay culimadii dalka odayaashii dalka waxgaradkii dalka
dhallinyaradii dalkuna isbeddel buu u baahan yahay qolada ciidamada ay faylka geliyeen waxaan leeyahay hooy jananka ciidamadu shacabku waa shacabkaagii waa shacabkaad ka dhalatay ka soo baxday aad darajada ku heshay waxaan leeyahay shacabkaaga u tudh madaxweynahana waxaan leeyahay u dhega nuglow shacabkaaga intaasoo Soomaaliland waana kaa horreysay waana kaa dambaynaysaa adiga lagu bari maayo wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay de wasiir arrimaha gudaha 24 hours siyaasadu ka sheekaynaya adeegii bulshada kale halkii uu nooga sheegayn lahaa buu siyaasadda kulmiye iyo siyaasadda waddan nooga sheekaynaya asagana waxaan farayaa inuu wixii uu mas'uul ka horta marka hore uu xigmadeeda barto aad iyo aadna waxaan u salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta joogaan gudiye dibadba waxaan farayaa in nabadgelyadooda si caam ah u ilaashadaan mudaharaadkooda ay ka dhigaan mid ay caalamka ku tusayaan rayigooda inuu isbeddel ay doonayaan mudaharaadka xisbiyadu ku dhawaaqeen waa wax soo jireena waa wax dabiiciya xaraana maaha shalay waa tuina ka ahayn isagoo awlaha ee uu lahaa mudaharaadii daahiriyaal ku mudaharaadii muusana si leeg buu ahaa mudaharaadkuna waa xalaal weeye xaraana maaha muusana kursiga wuxuu ku yimi cod ee uma helin boqortooyo iyo dhaxaltooyo cod buuna ku yimi cod baana laga kaxaynayaa madaxweynaha waxaan ugu baaqi lahaa tan cayaaraha ku duwi mayso waa hana qaaday ee madaxweyne taariikh xumo intaad meesha kala tegin waxaan ku oran lahaa codka xisbiyada waxaanay ku hadlayaan waa xaqe fur doorashada horta waxaan aaminsanahay qofka nabadda lagu cabsiyaa waa qof loola jeedo in laga awood weyn yahay nabadda ilaali haddaad maqasho waxa isticmaala dawladaha waaweyn waxaanay ka dhigan tahay waan ka awood weynahay istij haddii kale waan ku buufinaya marka anagu nabadda ilaalina laguma cabsin karo biritoole anaga marka naloo haddii siidhiga subaxnimada naloo yeedhiyo halkaasaanu taaganay xabaddana waan isu dhigaynaa soomaad garan waxa weeye sharciga haddii waxaan ku idhi ay xukuumadda iyo madaxdu ay ilaalin waayaan anaguna tuurtaan ku qaadanayna anigoo ah hooyo muwaadinada oo reer Soomaaliland ah waxaan ka hadlayaa barnaamijkan iyo dadkan isaysta saddexda xisbi go'aan ha gaadhaan waanu gaajoonaynaa sixir barar baan nahayaa cadawga idinku soo hoos dhuumin karaa waa la idinka faa'iideysanayaa wanaag iyo gogol ku dhamaysta mudane madaxweyne doorashada xilligeedii inaad qabato wad ku yara dhaga adeegtay annagu haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland dee waan mudaharaadaynaa de mudaharaadna diyaar baan nahay dictatorship uma baahnin 30 sano dictatorship waa dawladda afweynaha laga yimaaday tii afweynaad ku socotaa de anagu dictatorship ma baahne wadanku waa dimuqraadi marka uu jirayaa muxuu ahaa mudaharaadku marka waxaan leeyahay xukuumaddan ugu baaqaya waxa weeye waa xisbiyada mucaaradku xaq bay u yeesheen wax kasta oo sharcigu u ogol yahay inay sameeyaan shacabkuna xaq bay u leeyihiin wax kasta oo sharcigu u ogol yahay inay sameeyaan maadaama dastuurkeenu xalaalaynayo in qofku mudaharaadi karo rayigiisa cabiri karo oo mudaharaad ku cabiri karo waxaan leeyahay waa qodob sax ah waana qodob ah in dastuurkii la fuliyay dastuurkina waxaan u dhiganay waxa weeye inaan ku dhaqanno oo raacno xamse geelle telefishinka saab hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland